kulanti wacan wanaagsan dawdal ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aynu diiradu ka saari doonana waxaa ka mid noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaada 3,000 oo askari maalmaha soo aadan waxaa la qorsheynayaa in ay tababar ay u soo xirto mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya arintani walaa xor lahayeen sidoo kale ay ka muujiyeen Muqdisho ayaana sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo aadan ay gasho xaalad kale oo jahwareer xilli markaasi mucaaradku ay iyaga ee markaasi ay ka baqayaan in ciidamadan ay noqon doonaan kuwa markaasi lagu cadaadinayo maxaa ka jira in markaasi amniga magaalada Muqdisho laga wareejin doono ciidamada lagu magacaabo police militaro maxay tahay tallaabada ay dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadi doonto xilligan oo lagu jiro marxalad kala guur xog faahfaahsan iyo sidoo kale macluumaad la xiriira ciidamada tababarka loo soo xirayo iyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 15 bisha 2 ee February ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa la shaaciyay in ay qorsheynayso in ay tababar ay u soo xirto ku dhawaada 3,000 oo askari kuwaas oo ciidamo military ah waxaana sidoo kale lagu biirin doonaa ciidanka lagu magacaabo 77 oo iyaga ah markaas isku wada sida gaarka ah u suga amniga madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tallaabo isbedel oo weyn haatan qaadayso waxaana sidoo kale arintani markaas laga dareemi karaa in ay tahay marxalad siyaasadeed iyo sidoo kale marxalad muujinayso xilli kala guur iyadoo sidoo kale tani ay markaas ay ka dhigan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo cadaadis siyaasadeed ee markaas ay soo wado ciidamadan ayaana sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay tababar kala duwan la siinayay waxaana maalmaha soo aadan tababar loogu soo xiri doonaa magaalada Muqdisho ciidamadan ayaana sidoo kale waxaa lagu dari doonaa guutada lagu magacaabo 77 oo iyada ah markaas guutada sida gaarka ah oo ilaalisa madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sidoo kale ciidamadan ay noqon doonaan kuwa la geeyo daafaha magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale durbaba markaas ciidamadan ay noqon doonaan kuwa amniga kala wareega ciidanka police militaro dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxay qorsheynaysaa inay meesha ka saarto ciidamada lagu magacaabo police militaro oo markaas ka howlgalayay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho sidoo kalena ahaa ciidamo si gaar ah u sugaya amniga caasimadda ee dalka ciidamadan ayaana sidoo kale waxaa la shaaciyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay haatan ay doonayso in isbedel degdeg ah ee markaas ay ku sameyso iyadoo sidoo kale qorshaheedu uu yahay dawladdu inay qaado tallaabo kale oo markaas ka duwan tallaabooyinkii hore sidoo kalena lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho xogo faahfaahsan iyo sidoo kale warar hoose oo aynu helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamadan durbaba ee markaas ay mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ay iyaga ay walaa xoogan ay ka muujiyeen xubnaha mucaaradka ayaana sidoo kale waxay tilmaameen in ujeedada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay ciidamadani in ay markaas yihiin kuwa lagu cadaadinayo xubnaha mucaaradka sidoo kalena dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay ku afqabato xubnaha mucaaradka sida wararka qaarkood oo aynu helayno ee markaas ay tilmaamayaan mucaaradka ayaana sidoo kale waxay ka warheleen in ciidankan maalmaha soo aadan tababar loo soo xiri doono waxaana sidoo kale kulamo ka dhacaya magaalada Muqdisho ay xubnaha mucaaradka ay ku lafaguri doonaan ciidamadan iyo sidoo kale ujeedada ay markaas ay ka leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadan waxaa loo kala qaybin doonaa kuwa ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho kuwa la geeyo daafaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kuwa si gaar ah markaas u ilaaliyo amniga madaxtooyada dawladda Soomaaliya sidoo markaas uu qorsheeyay go'aankan ayaana waxa uu yahay mid kama dambaysa oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay gaartay durbaba waxa muuqanayso in arintani ay mucaaradka ay walaa xoogan ay ka muujiyeen iyagoona sidoo kale tilmaamay in arintani ay markaas ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu canaqabateeyo xubnaha mucaaradka sidoo kalena aanan doorasho markaas aanan la qabanin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale waxa la tilmaamay inta uusan ka qayb galin shirka mucaaradka iyo isaga markaas u dhaxeeya kaas oo ka dhici doona magaalada Muqdisho intuusan dhicin koor in ciidamadan uu tababar u soo xiro sidoo kalena ay noqdaan ciidamo ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho hubkooda ayaana sidoo kale waxaa diyaariyay dawladda Turkiga sida wararka qaarkood aynu helayno ay tilmaamayaan hadafka iyo sidoo kale qorshaha ugu weyn ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay ayaana sidoo kale waxa uu yahay in isbedel dhab ah markaas lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midda magaalada Muqdisho
muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu ammaanaa in muddadii 3 sano ee ugu dambeysay amniga magaalada muqdisho wax badan ay ka bedeshay dowladda ayaa gabi ahaanba waxay markaasi ka hortagtay dilalkii qorsheysnaa ee ka dhici jiray magaalada muqdisho weeraradii ay kooxda al-shabaab ay ku gali jireen hoteelada magaalada muqdisho qaraxyadii isdaba joog ahaa oo shacabka degmooyinka ku nool magaalada muqdisho si tarab u lan jiray iyo sidoo kale falal kasta oo la xiriira amni darro taas ayaana sidoo kale waxay markaasi muujinaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay isbedel muuqdo oo dhinaca ammaanka ah ay markaasi ay la imaatay sidoo kale ay tahay mid markaasi lagu ammaanayo sida ay dadka qaarkood ay aaminsan yihiin ciidamadan haatan lagu wareejinayo amniga magaalada muqdisho ayaana sidoo kale waxay yihiin ciidamo ka duwan kuwii hore waxaana sidoo kale la sii ambaqaadaya in la hormariyo amniga magaalada muqdisho marxaladda uu markaasi haatan joogana markaasi aan laga sii bedelo wadooyin hor leh oo markaasi xiran ayaa waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in ciidamadan marka tababarka loo soo xiro in la furo kuwaas oo iyagana markaasi la wareegi doono sugitaanka amniga wadooyinka qaarkood ee magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dowladdu waxay markaasi ay gaartay go'aanka madambeysa mucaaradka iyagana wadnaha ay fartay ku hayaan waxaana sidoo kale la tilmaamay in ay tani ay markaasi muujinayso baqdinta walaaca iyo sidoo kale walbahaarka ay markaasi ay qabaan xubnaha mucaaradka iyagoona sidoo kale ku tilmaamay in ay tani ay tahay mid aanan marnaba la isaga hari doonin sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ay muhiim ay siiso amniga dalka iyo sidii markaasi loola sii dagaalami lahaa kooxda al-shabaab balse aynan suuragal lahayn in xubnaha mucaaradka markaasi la afqabto madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu xilku hayay ayaana sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ciidamo fara badan oo hore markaasi isugu dayay in uu ku weeraro madaxweynaha haatan talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarkeeda ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale xubno kale oo mucaarad ah Farmaajo ayaana sidoo kale xilligaasi ciidamada waxa uu markaasi u diyaariyay sugitaanka markaasi amniga gobolka Banaadir laakiin xubnaha mucaaradka xilligaasi ayaana sidoo kale waxay markaasi ay tilmaamayeen in ay ahayd mid markaasi iyaga lagu beegsanayay haatan sidaas si lamid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay tababar ku soo xoreyso oo ku dhow 3,000 oo askari ayaana sidoo kale waxaa la tilmaamay in ay markaasi mucaaradku ay walwal badan ay ka qabaan in ay iyagu ay noqdaan kuwa markaasi lagu afqabto sidoo kalena lagu aamusiyo sida ay dadka qaarkood ay markaasi ay aaminsan yihiin muqdisho ayaana sidoo kale waxay ku jirtaa mid kamid ah marxaladii siyaasadeed ee ugu adkaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay sugaysaa amniga durbabo waxaa sidoo kale fariimo loo dhiibay xubnaha mucaaradka waxaa sidoo kale laga joojiyay dabaabaadka iyo gaadiidka dagaalka in inta badan ay la galaan hotelka lagu magacaabo airport oo ku yaalo xindaabka xalane ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale la amray in wadooyinka qaarkood marka ay marayaan inta aysan hoteeladooda iyo guryahooda intaysan ka bixin koor in ay laamaha amniga wargeliyaan si markaasi loola socdo dhaqdhaqaaqooda guud iyo tallaabooyinka ay qaadayaan in markaasi 5 galabnimo wixii ka dambeeya aysan dabaabaad iyo gaadiid dagaal aysan ku dhaxwadan karin gudaha caasimadda muqdisho iyo marxalado kale ayayna sidoo kale tani ay markaasi ay ka dhigan tahay waxaana sidoo kale ay muujinaysaa in mucaaradku ay markaasi ay haatan ay dareemayaan walwal iyo sidoo kale in dowladda federaalka Soomaaliya ay la imaanayso tallaabo kale oo iyaga markaasi lagu carqaladeynayo xilli markaasi dhowr jeer oo kala duwan laga hor istaagay in goobaha qaarkood ay markaasi ay booqdaan xubnaha mucaaradka taasoo iyaga markaasi walaac xooggan ay ka muujiyaan ciidamada walwalka laga muujinayo oo saacadaha ama maalmaha soo aadan tababarka loo soo xiri doono waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan iskula wadaagi doonaa